السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa xaqiiqa wax kasta oo ku soo kordhay nolosha aadamuhu inay leeyihiin dhib iyo dheefba haddaba isbeddelka ku yimid waqtiyadan dambe nolosha aadamaha ayaa waxay dad badan ka dhigeen kuwa aanu jirkoodu helin jimicsigii u baahnaa iyadoo jirka aadamuhuna aanu marnaba ka maarmaynin jimicsiguna maaha sida ay dadka qaarkii u fahmeen ee ah in jimicsiga laga dhigo mid xadidan sida in la jimicsado wiig bil ama sanadba ee jimicsigu wuxuu ku lamaan yahay nolosha aadamaha waana muhiim qofku inuu sameeyo noocyada kala duwan ee jimicsiga qaabka uu awoodo ee uu jimicsan karo waxaanaynu soo qaadan doonaa 9 ka mid ah faa'iidooyinka laga helo jimicsiga kuwaas oo kala ah kow ugu horreynba jimicsigu wuxuu u fiican yahay caafimaadka jirkeena sare 2 jimicsigu wuxuu wanaajiyaa dhammaan xaaladaha nafsaaniga daraasado la sameeyayna waxa lagu sheegay in qof kasta qofka uu ka jimicsi badan yahay uu ka farxad badan yahay 3 daraasadahani waxay sheegeen in dadka jimicsiga sameeya inta badan ay noqdaan dadka sida wanaagsan u fikira kuna guuleysta fikirkooda 4 jimicsigu wuxuu wanaajiyaa oo xoojiyaa dhammaan murqaha jirka 5 jimicsigu wuxuu wanaajiyaa isku dheelitirnaanta dhammaan marinada dhiigga ee jirka dheefshiidkana wuxuu ka dhigaa mid si fiican u guta shaqadiisa 6 jimicsigu wuxuu furaa abateedka ama cunto cunista waxaanu meesha ka saaraa subaga saayidka ee jirka 7 waxay daraasado badani sheegeen in dadka jimicsiga sameeya inta badan ay ka badbaadaan xanuunada halista ah sida wadna xanuunka macaanka kansarka iyo xanuunada maskaxda ku soo booda 8 jimicsigu wuxuu ilaa xad wanaajiyaa caafimaadka meelaha kala goysyada ah ee jirka 9 jimicsigu wuxuu ka dhigaa difaaca jirka mid si fiican u shaqaynaya waxaanaynu ku soo koobaynaa mahmaahdii ahayd jir caafimaad qaba ayuunba laga helaa maskax caafimaad qabta ilaahay baana cudurka iyo caafimaadkaba haya waad mahadsantihiin